su'aal ayaan waxaan soo dhigay commentiga oo aan ku leeyahay sheeg kalarada uu ugu jecel yahay nabigeena sallallahu calayhi wasallam. jawaabihii laga soo bixiyay ayaan idiin wadaa, fadlan daawo videoga bilaab ilaa iyo dhammaad. mahadsanid. بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada kuwiin hegsom waan idin salaamay meel walba waa dunida ka joogtaan iyo xil walba oo idin tahay. waxaan idin rajeynayaa kheyr iyo caafimaad dhammaantiina, asxaabta cusub, asxaabta hore u joogtay kulligiina iyo kuwa imaa doontaba soo dhawaada, kusoo dhawaada qalbi furan. aad iyo aad ayaa umahadsantihiin dhiirigelintiina, booqashada channelka soo booqateen dhammaantiinana waa mahadsantihiin inaa idin dhoone marnaba kama daalayay kamana caajisayay. man laa yashkuri innaas laa yashkuri illaah. alxamdulilah, allah subxaana watacaala ayaa mahad iskale oo na soo gaarsiiyey haween kaleeto jimco ah oo aan isku xasuusino in aan ku salino nabigeena sallallahu calayhi wasallam. maalmaha ugu kheyrka badan waa maalinta jimcaha. ku saliya nabigiina sallallahu calayhi wasallam. sidoo kale rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa codsigaaseti naga codsada oo leh maalmaha ugu kheyrka badan waa maalinta jimcaha. badiya ku salinteeda haweenka jimcaha iyo maalinta jimcaha aad ayay u fududahay. ku sali nabigaaga sallallahu calayhi wasallam. haddii aad nebigu ku salisid 1 jeer 10 jeer oo ajar ah iyo 10 jeer allah subxaana watacaala uu kugu salinayo. sidoo kaleeta nebigana salaantaada uu kaaga soo jawaabayo. wax ka fiican male ajarkaasoo dhan. sidoo kaleeta la wadaag ehelkaaga asxaabtaada. sidoo kale ha iloowin inaa akhrisatid suuratul kahf haddii aad awoodin inaa akhrisatid, xitaa dhageyso insha allah. sidoo kaleetana ka faa-iideyso saacadda istijaabada ah, kana faa-iideysta maalmaha ugu kheyrka badan ee 10ka dilxija. maalmaha allah subxaana watacaala camal la sameysto uu ugu jecel yahay waaye. sidoo kaleeto uu ku dhaartay maalintii diinteena la dhameystiray. faa-iidooyin badan ayaa ku jiro, marka ajar walbo oo aad ka heli kartid ama camal walbo aad sameysan kartid ha ka caajisin oo sameyso. waxaan soo dhigay qeybta commentiga su-aal oo aan leeyahay sheeg kalarka uu ugu jecel yahay nabigeena sallallahu calayhi wasallam, ama kalarada uu ugu jecel yahay nabigeena sallallahu calayhi wasallam. dhowr qofood ayaa kasoo jawaabeen. commentiga badanaa dadka ma arkaan, laakiin inta kasoo jawaabta ayaan soo qaadanaya. haddii ay su-aashooda ayagana sax tahay ama qalad tahay ayaan isla arkeenaa insha allah. adigana haddaa hore u ogeed commentiga iigu soo qor. haddaa hadda ogaatayna baro insha allah. caruurtaadana bar, walaalahaaga bar, ehelkaaga bar, videoga sii sheergaray sidaad ajar uga heshid insha allah biidni illaahi kariim. asxaabteeda qaaliga ah dhowr qof horta way kusoo saliyeen. qofka ugu horeeyo wuxuu dhahay waa gaduud. qofta ugu horeyso waxay dhahday waa gaduud. haddana waxaan u galeynaa qofka kalena wuxuu dhahay waa cad iyo madow. qofna wuxuu dhahay waa jaalo. maasha allah, aad iyo aad ayaa umahadsantihiin inta ra-yigooda iyo fikirkooda soo dhiibtay. wixii su-aashooda qalad ahne waa qalad ayaan leeyahay, wixii wax ka saxanne way saxan yihiin oo inta kale ayaan dhammaystiri doonaa hadduu ilaahay subxaana watacaala idmo. jazaakallah kheyr. inta nebiga kusoo salisana jazaakallah kheyr ayaan idin leeyahay. nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaa ugu baqiilsan qofkii maqlo dikrigeyga ama meel aniga leegu xusaayo ama magaceyga oo haddana igu salin waaye, qofkaas ayaa baqiil ah ayuu dhahay. marka mar walba ha ka caajisin, xitaa haddaa soo qoreynin niidaada ka dheh insha allah. marka qofka ugu horeeyo waa gaduud ayuu dhahay. kalarkaas wuu saxan yahay, laakiin waa dhowr kalar. inta kalar ayaan sheegi doonaa. aniga waxaan dhahay kalarada uu ugu jecel yahay nabiga sallallahu calayhi wasallam. qofka labaadna wuxuu dhahay waa cadaan iyo madow. sidoo kaleeto wuu saxan yahay, laakiin qofka jaalaha soo qoray ma saxno. kalarada uu ugu jecel yahay nabigeena sallallahu calayhi wasallam oo aniga xitaa kalar kamid ah aan aad u jeclahay ayaa hadeertaaneetina niila wadaagaya. kalarka ugu horeeya waa cagaar ama green. kalarka ugu horeeya oo nabigeena sallallahu calayhi wasallam oo favoritekiisa yahay waa cagaar ama green. kalarka labaad waxaa waaye cadaan. kalarka saddexaad waxaa waaye madow. kalarka afraad waxaa waaye gaduud. kalarka shanaadna waa garey ama gariijo, qof walba sida uu u yaqaano. wadankaneetina waxay dhahaan qarays.
haddii aan mar labaad ku celiyo kalarada uu ugu jecel yahay nabigeena sallallahu calayhi wasalam, anigana aad iyo aad maalintii aan ogaagday kalarka uu aadka ugu jecel yahay inuu yahay cagaar. subxaan allah, qalbigeyga ayuu dhexgalay cagaar. meel walba aan ku arko aad iyo aad ayaan u jeclahay kalarkaaseeti. laakiin kalarada kalena uu sii jecel yahay ayaa sii jiraan. hadaa hore u ogeen hadeertaan baro, hadaa ogtahayne insha allah ehelkaaga asxaabtaadana lasii wadaag. kalarka ugu horeeya waa cagaar, kalarka xiga waa cadaan iyo madow. laba qofood way soo sheegeen, hal qof ayaa soo sheegay kalaradaas, labadaas cadaanka iyo madowga wuu saxay. sidoo kaleeto gaduud sidoo kale waa la saxay. jaalaha oo kaliya ayaa saxneen, wuxuuna ahay gaduud, cadaan iyo madow, cagaar iyo grey ayuu ahay. insha allah biidnillaahi kariim. waxaan rajeynayaa inaad videoganeeti ka faa'iideen. waxaana idinka codsanayaa inaad sii sheergareysaan sida dad badan uga faa'iideystaan, aadna badisaan ku salinta nabigeena sallallahu calayhi wasalam. sidoo kaleeto takbiirta iyo tahliisha iyo istikfaartana badsada insha allah. maalinta jimcaha maalin kheyr qabto waaye, iyo maalmo kheyr badan ayaan ku jirnaa. haddii aad videogan ka heshid like saar, siina sheergaree. hadaa su-aal qabtidna mar walbo commentiga dareem inaad commentigaaga yahay waxii rabtid aad kusoo weydiin kartid. inta aan videogan video lamid ah ku kulmeynane waxaan idinka tegayaa jimco mubaarak ayaan idin leeyahay. meel walbo adduunka joogtiina ilaah idinku xifdiyo, inta xanuunsanna ilaaha caafiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaana allah.